السلام عليكم أصحابتي كحران سير في قادة جنرال سود وهذا أصحابي ما شاء الله والسلام يا أصحابتي إذا مرتي كحران وشرفت وقروح بدن وقيمها بدن وحنا لا يميل بيشوفتان مال ونكسن وحارب على أنا كسطورنا أصحابي سود وهذا إن شاء الله تعالى هذا ما ستين إن شاء الله تعالى وحنا قعد سنة إن الله كدهان أنا نجيه المملكة والشر وسيد هذا قف مرتي صاحبك أصحابتي هذا كمية إن شاء الله مركا waxaan rabnaa inaan sameyno alaabta ujeedaan meesha waxaan u yaala hilib chicken iyo tuun iyo kabsar maxaa la yiraahdaa kabsar maaha waxaan ka wadaa karooto insha Allah taala waa taas hadda makiinada ku ridaynaa insha Allah taala maanta waxaan rabaa bahasha inaan ila tijaabisaan hilib weliga ma ku shiiday gacantaada ma ku shiiday wadanka markaa joogna waxaan sameey jirnay hilibka lagu soo shiidi jiray sambuuska ku soo sameeyay jirnay hilibkiisa laakiin inta markii la maamishin waxaan ku dhayaa alaab koronto ku shaqeynaysa rag falfududays ma jirto marka asxaabay insha Allah khayr baa Allah si wada tijaabinayna maanta yaa alaabtii maartay noloshii jir inay fududayd in adkeed ayaa maartay fiirnayna ani makiinada waxa ku sameystaa biskutka badana waa soo gali maana ana ku sameynaya hadii aad ku istiin mar kale ana inay soo bilaabana waa idin soo gelinaya wallahi aad iyo aad ii dhibtay marka ku shiiday beem sheegay asxaabta waxa runta ila u sheegtay raac fiican marka makiinada aad uga ma aan helin oo waxaan ku dhihi lahay mashiinka maartay korontada ayaa ka fudud oo meesha maartay hilibka ku soo maartay ka soo gadatay iishida dheh tan waxaan ku dhahay si fiican perfect u taqaanin hadda okay waaye marka insha Allah taala asxaabay soo dhawaada waa taas maxaa la yiraahdaa chicken saas oo noqdo marka shiidnay ma sha Allah qurux oo soo baxay karooto xoogay waa weyn yahay laakiin waxaan sameeyay qayb kale ayaan waxaan rabaa inaan ku shiito maxaa la yiraahdaa gacanta ku hoola ama maxaa la yiraahdaa kiirada yarta oo makiinada ujeeda gacanta ku shaqeysaa asxaabay gacanta ayay ku shaqeysaa waxaa ku dhahay bahasha almost waxaa hayaa u maleynaa 3 sano waa hayaa sideedu waaye badanaa ramadaanka ayaa isticmaalaa sidaas ay maartay u egtaa qurux maxaa la yiraahdaa ay kugu jarjaraysaa basasha indhaha kaaga leeyso wax dhaw kugu fududeynaysaa aniga wax badan ayaa hayaa yaa koronto ka maconayso wax ma ku maartay ka marabto gacantaada la dharag halkaas qabanay waa jiide waa ku shiidayaan ku dhac chak saas kaaga siinaysaa inaba caadi maaha waa alaabta u bogay oo ma aragtay wax inta soo gad qiimo dara ma jirtay ajir moogta oo wax maartay faa'iido ku lahayn baashan aad iyo aad maartay aniga ugu nastay beem sheegay saas iga dhigaysaa marka basasha ku shiito wax walba ku sameeysan kartaa bahal kale ayay wadin jirtay aniga kaas kale ma isticmaalo laakiin kan la isticmaalo oo hilibka iyo maartay lagu jarjarto basalaha iyo kabsar caleenaha iyo waxaas waa taas karootada qayb kale ayadoo hoolan caadi gacanta ku hoola waa taas ما شاء الله تبارك وكاسا alaabteen waxaan rabaa inaan maartay carfiskii iyo cusbadii iyo marqayaagii waxay naga baahnid ku darno oo isku dhex darno insha Allah asxaabteed waa kana sax weyn oo ku shubay waa isku la daray ma sha Allah kaana waa kaasa saas maartay nagu diyaarsan tahay marka waxa waa insha Allah alaabteen soo kala tuur leh ayaa noo dhimanaanaysa insha Allah waa kada burkiina uu noo qamiiray burkaanayti inama tusin laakiin waan qasay أول هري يبصي قصة أنت أنا هوش عم بلعب كورة يا سي قصتي مرك إن شاء الله تعالى دوام داسكيني أساس مارت أفوري أما أقميري سأتقاند بقى إن شاء الله تعالى أصحابي وادين مارتي وادي سوقلين دونا إن شاء الله مداس يبدأ أكون 60 سنة مارت أسميستو أساس إنه صباح ألعبتني وروح البضار وكاسة ألعب ديارسن وقروح بدان السرية هذه المرتي هذا قلبتي كو إيمان أكري وقت قاربتي دورك حتى أكري waxay diidaysa malahan qadada maaragtay dad oo qada macnaha ka cun rabin oo kala alaabta ku soo dhaweyn kartaa asxaabtaada u karsan kartaa gurigaada u sameeysan kartaa ilmahaaga u sameeysan kartaa ya ma sha Allah waalidkaaga u sameeysan kartaa qof alaala qofkii maaragtay adiga aad jeceshahay ama asxaabtaada ama maaragtay qof qiimo ku leh oo kale oo ku soo dhaweysan kartaa marka insha Allah taala waxaad leeyahay maalin wanaagsan isma dhaafna insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh like share comment insha Allah